sirwade media kaga bogo barnaamijyo ku xiiso geliya daawade haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada mahadsanid basaaskii ugu weynaa cahdigii dagaalkii qaboobaa General Dmitry Polyakov basaaskii laba kaarlaha ahaa ee horseeday guushii galbeedka ay ka gaareen cahdigii dagaalkii qaboobaa ee socday muddadii u dhaxaysay 1947 ilaa laga soo gaaray 1991 kadib dhimashadiisii waxay u noqotay guud ahaan sirdoonkii galbeedka maalin madow wuxuu Mareykanka u soo basaasi jiray dalweynihii midowga Soviet oo markaa ka dhaxeeyay dagaalkii qaboobaa magaciisa oo dhameystiran waa Dmitry Fyodorovich Polyakov taariikhyahanada qaar waxay ugu yeeraan basaaskii ka ilaaliyay dagaalkii qaboobaa in uu isku bedelo dagaal weyn kulul waxa uu ku dhashay dalka Ukraine oo waqtiga ka tirsanaa dalweynihii midowgii Soviet-ka taariikhda markay ahayd 6 bishii 7 1921 dhanka waxbarashadana waxa uu ka soo baxay dugsiga tababarka madaafiicda waxa uu ka mid ahaa askartii Soviet-ka ee ka qayb qaadatay dagaalkii labaad ee adduunka sanadii 1951 waxa uu ka mid noqday sirdoonka Soviet-ka shaqadiisii basaasnimo ee ugu horeysayna waxa loo diray dalka Mareykanka qorshe oo Soviet-ka ka lahaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York shaqadiisu waxay ahayd in uu agaasimo koox basaasin ah oo aanan haysan xasaanad diblomaasiyadeed ay ku gambadaan sanadii 1961 waa sanadkii ay wax waliba isbedeleen aynu aragno Dmitry Polyakov booqasho uu ku joogay xarunta qaramada midoobay waxa uu halkaa kula kulmay saraakiil ka tirsan FBI-da halkaasna waxa ka bilaabmay shaqadii laba kaarnimada ee Dmitry Polyakov FBI-da waxay u bixiyeen magacyo dhowr ah oo afgarasho ah waxa ka mid ahaa magacyada Top Hat Donald Rome iyo kuwa kale aad u badan waxa caadi ah in sirdoonka ay adeegsadaan code names magaco sir ah oo qofka magaciisa saxda aan ahayn inkastoo xilliga saraakiisha FBI-da aynan aaminsaneen sababtoo ah waxay garteen in uu yahay basaas Soviet ah oo halka hool u jooga waxayna shaki weyn ka qabeen sida uu ogol yahay in macluumaadka sirdoonkii dalkii Soviet-ka uu Mareykanka si sahlan ugu gacan geliyo taasina waxa sii dheereed in uu diiday lacag badan oo loo ogolaa waqtiga in la siiyo laakiin wuxuu codsaday lacagta uu qaadanayo isu geyn in aynan ka badan sanadkii $3,000 balse arinta aadka uga yaabisay FBI-da waxay ahayd muddo yar kadib markii uu Polyakov u soo gudbiyay macluumaad sirdoon oo aad xasaasi u ah oo Soviet-ka lahaa markaas ay aamineen FBI-da basaaskan laba kaarlaha ah halkaas ayuu xiriirkoodii ka sii socday ayagoo meestay qalab ay isku xiriiraan iyo qalab uu xogta ku soo gudbiyo laakiin si uusan hooshii loo soo diray ugu fashilmin waxay u sameeyeen FBI-da laba qof oo ka tirsan basaasintooda kuwaas oo iska dhigay in ay u shaqeeyaan Dmitry Polyakov oo asaga shaqaaleysiistay halkaana oo macluumaadka sirdoon ee Mareykanka u soo gudbiyaan FBI-da waxay sii jireen Polyakov xogo galbeedka ku saabsan kuwaas oo aanan aad muhiim uga ahayn galbeedka laakiin sax ah si uu Soviet-ka ugu qancaan wayn u suurta gashay arrinka sanadka markuu ahaa 1974 Polyakov waxa loo dalacsiiyay darajada generalnimada taas oo soo suurta gelisay helidda keedka guud ee sirdoonka Soviet-ka haddii ay ahaa lahayd xogaha militariga liisaska basaasinta Soviet-ka uga howlgalo wadamada galbeedka uu Mareykanka ugu horeeyay taasoo generaal ciidanka Mareykanka ka tirsanaa laakiin Soviet-ka basaas u ahaa lagu ogaaday iyo sidoo kale cilmi baare dhanka gantaalada la hago ah oo ka tirsanaa wasaaradda duulista hawada ee dalka Ingiriiska iyo macluumaadyo kale oo aad u fara badan waxa uu horay u sii waday oo sii hormariyay gudbinta siraha Soviet-ka ee uu gudbinayo Mareykanka waxaana xogahaas uu soo gudbiyay ka mid ahaa 5,000 oo barnaamij oo kala duwan oo lagu basaasay tiknoolajiyada militariga galbeedka taas oo ka caawisay in la adkeeyo iibinta hubka galbeedka
laga iibiyo dalalka kale ee caalamka. sidoo kale taariikhyahanada waxay sheegaan in Mareykanka oo markaas xisaabaad qaldan oo ku aadan in Sofiyeetka uu dagaal diyaar u yahay isku dhufsanayay, laakiin xogihii oo Polyakov soo gudbiyay ka ogaadeen in Sofiyeetka laftiisa ay baqdin ka qabaan dagaal qarxo, taas oo galbeedka cabsidii hayse ka dajisay. Sirihii ugu dambeeyay ee uu soo gudbiyay Polyakov waxaa ka mid ah 4 sarkaal oo ka tirsan Mareykanka oo basaasiin u ahaa Sofiyeetka, iyo sidoo kale macluumaadka gantaalaha lagu burburiyo taangiyada ee Sofiyeetka hormariyeen, taas oo ka dhigtay dalalkii galbeedka in ay kasii gaashaantaan maadaama ay hayaan dhammaan xogta samaynta gantaalahaas ku aadan. sanadka markuu ahaa 1980kii, Polyakov waxaa loogu yeeray Moscow sababta loogu yeeray oo ahayd in Sofiyeetka ay ogaadeen in uu basaaskii ay dirsadeen oo isla ayaga cadowgoodii u basaasay, taas oo keentay in la xiray. taariikhda markay ahayd January 1990kii, wargeys uu maamulo Sofiyeetka ayaa soo daabacay in dil lagu fuliyay Dmitry Polyakov. taariikhda markay ahayd 15kii March 1988kii, basaaskani waxaa lagu tiriyaa sababta guusha galbeedka ee cahdigii dagaalkii qaboobaa. daawade, barnaamijkeena halkan ayaynu ku soo gabagabeynaynaa. fadlan haddii aad channelku cusub tahay, like iyo subscribe saar.